أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض تراب سود هذا ومسكين كي الله خادوك النورها إن شاء الله. إن قبضي إيو سود وينتي إن حبت جوجينتا مصبيحي أيينو كأنا وحير مدحوينها يرئيس الوزراء ayaan iyagana wax yar ka oranaynaa soo dhawaada ilmo turaabo horta maxaa ka dhaxeeya Muuse Biixi iyo Baynawaas ninkii la oran jiray Riyaadan Turaabo waxaan idin weydiinayaa ninkii la oran jiray Baynawaas Soomaali qabiil way raadisaa oo way ku faantaan nin kastoo halyeey ah reero ku faanaya ma arag Baynawaas anagu ahaa ninkii la oran jiray Baynawaas iyo Muuse Biixi maxaa ka dhaxeeya horta maxaa ka dhaxeeya taato kala ka sii daran sawirkan maxan idinka muuqda ee Muuse Biixi ma u fiirsateen Soomaali maryoolay shanta la sheegay shanta ahaynay sawirkan iyo sawirkii Fircoon ma isku fiirisay bal isku fiiriya ninkaan isku fiirino isku fiiri Fircoon oo ingigay waqti hore ingigay iyo Muuse Biixi oo qoyan wali oo ingigin sawirkooda maxaa ka dhaxeeya ninkii la oran jiray ka soo jawaaba aniga way isku egyihiin ma indhahayga qaldan ma nacaybsha igu jira ilaaha uu nacaybshaha iyo xumaanta iyo beenta iyo xaqiraada naga ilaali idinkuna ila wadaaga sida wax u arko inta u aragtay intaanu aragay Allah idin garasiyo Muuse Biixi god hogaanka xagee laga xidhaa awrka kurka laga xidhaa okay asanam iyo Muuse Biixi iyo dirkiisa hogaankii awrka ay gadaal kaga xidheen dabada ay kaga xidheen muxuu ku dambeeyay god ku jira maanta soo dhawaada Riyaadan Turaabo intaasaynu taataabanaynaa ninkii la oran jiray Cabdi Maxamed Cumar oo aynu Fircoon u bixinay dhabihii Fircoon buu socdaa waa lagu xadgudbay ficilka uu sameeyay ficilkii Fircoon buu yakaa laakiin suurada Cabdi Maxamed Cumar sawirkiisa iyo waxaan isku qiimeeyay suuradii Fircoon isku dhaw boqolkiiba 3,001 waxa uga dhawaaday Muuse Biixi sawirkii Fircoon beentana boqolkiiba 3,001 waxa dheereeyay ninkii la oran jiray Baynawaas armu aha waxa waa la iska dhaxlaa wanaagan waa la iska dhaxlaa maanta la iska dhaxlaa Baynawaas waxaan ku oran jiray boqor ilay waxaan ku oran jiray boqor ilay kii labaad weeyaan boqor ilay jijig ka soo jeeday waa ninkii absam isku baabay waa ninkii jijig isku baabay waa boqor ilaygii labaad baan oran jiray magaca wax ka wadaagaan jiinkii wax ka wadaagaan sabanka iyo taariikhda soo gudub wax ka wadaagaan marka ilay wax badan oo uu sheego run bay ahaan jireen wax badan uu diidan yahayna wuxuu ku diidi jiray si adag laakiin luuqadda uu dheer yahay Muuse Biixi Baynawaasnimada iyo beenta iyo khiyaanada waynu wada jeednaa marka inta markaas garab dhigtaan waxaan doonayaa inaad idinkuna bal ra'yigiina diibataan Riyaadan Turaabo odayaasha reer Laascaanood bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahu carabka naga beenka ilaali odayaasha reer Laascaanood garaadadow Baynawaas 3,001 jeer buu dheereeyay Muuse Biixi ka digtoonaada waa Baynawaas taariikhda Muuse Biixi hal shay oo run kuma jirto rag yaqaana iyo waxaan anu ka ogahay waxa la wixii saraakiil askari xiiqsaneed ee dawladii barakaysnayd burburisay
وانا قانا اوبريتور بانها قاهره سفارة الصومالية أي قاهرة أي اسكتتي جبهته دولة دمية بل إنه هشيسيسو أوكي ويل خيار الدرسان أيو تلفونات الدرية وعي سرقال كستو حيقسن أو مصبيح كميديا أيانها حق بدن بهنايا الله ما حانسر هيا إن مصبيح تاريخ ديسة ومد مركل الرقيو كانوا كلا لوغا دغا مدح ummad marka la rogayo uquba aynu kalabsanay markaan leeyahay madaxdeynaan habaarin oday dhaqameedkeenaan habaarin tana kamida Soomaaliya wada habaaran tahay iyadoo wada habaaran ayaa waqooyigu waxay dheer yihiin may reer Hargeysaadku waxay dheer yihiin meel magaalo diin lagu caayo diintii Ilaahay lagu caayo Hargeysa koow ah ma jirto meel kale waqooyi kale boorama lagu caayo burcada lagu caayo meel lagu caayo diinta waa gabilay iyo Hargeysa nabi maxamed alayhi salatu wasalaam meel lagu caayo waa Hargeysa iyo gabilay meel Ilaahay lagu caayo waa Hargeysa iyo gabilay حتى بورا ما دعكم جيتو قيس كودا حن وكفانو كل يردو صومالي ما أنا فيرسو تلو مهبر يونس با يمو صبيح يدير كيسا تاي دين كاي شيء جيا حتى ما لقى يابا إنه داوانا إنه مصيبة أما إنكارتا أما عقوبة لقلي دين لقلي نقل لقلي إلهي لقلي مقالدين ور أنت تدقن حلاش هي بالإلهي توقع ninkan ma laga yaabaa ninkii Hargeysa habaarkan ay garabsatay iyo dhibkan ninkii rogi lahaa Hargeysa inuu yahay in isaga loo adeegsan way muuqataa musabbixi taariikhda hal qoyan male meel qoyan kuma leh taariikhdiisu waa wada pen iyo khiyaano iyo ciil ninkan waa nin loo soo diray ummadda inuu halaago war inta xalaasha ahay saynu iskaga qabanaa inagoo inaan qabiilo kala bixin inagoo inaan reehel waninkani waa musiibo loo soo diray ummadeesayna u qabanaa odayaasha uu dirayo waxa la ii sheegay majority-ga inay la yaaban yihiin inay diidan yihiin inuu qaar la yaaba laga cabsan baa leeyahay hadii maqli waayaan haduu qaar inuu qaar la ascaadodka ku fashilmay waxa qarka u saaran inuu rag badan oo reer waqooyi ama reer sheekh saaqa ama wada dhaqameed ama culimo inuu kharajiyo wasida la sheegay waxaan leeyahay reer jigjiga waa duleedka musabbixi dirkiisa habar yoonis jigjiga laas caanood way dulmaysaa jigjiga in badan bay Soomaali u hiilisay laakiin maanta uma hiilinayso odayaasha reer jigjiga dhaqanka ah Soomaaliyeed ee cid kasta leh 32 qabiilahow ee jigjiga fadhiyo go'aan ka soo saara musabbixi waa duleedka laas caano u fogtahay ninka laas caano gubaya ummadda halaagaya duleedkiinu fadhiya familkiisu iska dhaafa isaaq iyo balaayo jin isaaq buu gumeynaya isaaq buu layn doona war haynu u gurmano laas caano intaynaan u gurman haynu u gurmano reeshe isaaq buu layn doona inta soo hadhay baaqiga yu layn doona haynu u gurmano oo reer jigjigow meeshan yar ee duleedkiina musabbixi candadiisa iyo maxaan ku rahaa ubadkiisu iyo ehelkiisu joogan hal habeen qabta haddaad hal habeen qabataan oo ku dhaqaadaan xarshinta yar meeshan yar ee harta sheekha way dhamaanaysaa shaqadu reer jigjigow in badan baa Soomaali u gurmateen idinka oo mid ah oo 32 qabiil ah oo aan kala harin u gurmada qaybtan yar tuuladan yar ee duleedkiina jigjiga ee ummadda laga hogaamin in laga halaaga ka qabta haddaad ka qaban weydaan ummadda dhaafa xamar way ka fogtahay ma yaqaanaan dhaqankooda okay hawiye ma yaqaano musabbixi dirkiisa reer jigjiga yaqaana reer jigjigow u gurmada Soomaali oo isaaq u gurmada oo habar awal u gurmada habar awal waxaan ka cabsan in la gumaado nin kasto habar awal meesha jooga lagu gumaado war kuwanaynu wada dhalanay kuwanaynu dad iska xignaa war reer habar awal haynu u gurmano intaynaan u gurman cid kale inta reerji mu ku daya hadaa taa sameyn weydaan idinka
idinka ummadda in la dhaafiyo u baahan inta odayaasha reejiyan ku deynaya iyo culimada reejiya odayaasha uu diraya maba diraya uu doonaya inuu diro okay musabixi kow war fircoon dhabihiisa haystay adigu horta ciidamada ka soo saar ma oran kartaan haddaad oran kartaan intaydan hargeysa ka bixin haddii lacala aad baxaysaanba intaydan hargeysa ka bixin shuruudda u horeysa musabixi la gelaysaan waanu tagaynaa laascaanood shardiganaga koobaad haddaanu odayaasha reer hargeysa nahay ee dirayso shardiga koobaad xabadda jooji ciidamadana ka soo saar haddaa taa aa samaynayn ma tegayno inuu idin khaarajiyaa suurtagal ah uu yidhaaho garaadadii baa khaarajiyey kacaanka baraysan baa khaarajiyey odayaashaasoo waan idinla talin baynawaaskan ka jooga mu'aamarooyinka iyo jallaafooyinka uu dhigaya ka dawa haddii aad qaban weydaan muuse biixi oo isagu la madaxweynaan ahay uu rasaasta dayn waayo ugu garaacaya laascaanood af aad ula tagtaan garaadada ma hayo ma garanayo inuu idin laayo uu yidhaaha garaadada laayay baa suurtagala odayaashaas iyo culimadaas baan u digayaa war ninkan suuradda fircoon kale ninkan baynawaaska ah yuuna idinlu goynin ha u tegina garaadadii af aad kula tagtaan ma garanayo haddii kolka u horeysa aydan qaban karin muuse biixi war idinkoon kala bixin idinka oo reer waqooyi ah idinka oo wada socda oo cid kasta leh shantan qabiile meesha degan haddaad tihiin iyo ka badanba horta muuse biixi qabta joojiya xabadda haddaayo ciidanka ha ka soo saaro dhul daarood baa inoo dambeeya gadabuursigii iyo dhul fiqishini iyo dhul gabooye ha ka soo saaro ma aha shardiga dhulbahanta keliya bal isaaqun ha inoo dambeeyo garaxajista inoo dambeeya inasigu wax yar horta shardigan koowaad dhul daarood ha ka soo baxo xabadda ha joojiya ha ka soo baxo markaas af aad kula tagtaan garaadada waan garanaynaa okay shanta Soomaaliyeed way idin garab taagan yihiin kuwa reer Hargeysa ninkan suuradda fircoon kale han iska qabanno ninkan dhaqanka baynawaaska dhaafay booskii baynawaas ugu yaqaanay han iska qabanno intaana odayaashan reer Hargeysa yaan leeyahay madaxweynaha xasan sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo ku-xigeenkiisa waxaa la yidhi labadii ra'iisul wasaarihi iyo ku-xigeenkiisa baa dagaal ka dhex dhacay oo is haysta bal labadaa la geray midna daaroodiisam midna isaaqiisam gartay meeshay ka socdaan ay ka duuliyeen gartay okay in loo fiiriyo ummadii kale soomaalidii kale hawiyihii kale okay dirtii kale sheekhaashtii kale jareerkii kale ee baarlamaanka ku jiray jilaac iyo jareer raxan weyn away ilaa labada uu ra'iisul wasaaraha iyo ku-xigeenka ma ah war ummadii kale away nin leh raxan weyn caay oo hawiye caay oo dir caay oo soomaalimada caay oo gabdhihii caay oo dadkii la soo tarxiilay birbira la keenay dadkii ka celiyey oo dadkii inuu gubeed ka dhigay iyo nin kuleh Soomaali baan ahay xasan sheekh baa ii taliya xamar baa la iga taliyaa in la isgarab dhigo hawiyow shame dirow shame raxan weynay shame kuwa baarlamaanka fadhiyo muuse biixigaas mararka qaarkood waxaan isweydiiyaa niyahoon nimanka reer waqooyi inay caayaan hawiyaha oo dirta caayaan oo raxan weynta caayaan war iyaga idinka saxsan nimanka reesha saaq baa idinka saxsan marka baan isweydiiyaa oo qubi tiraaha bal nin Soomaalinimadii raba oo la xasan sheekh baa ii taliya oo hawiya ii taliya oo ogol nin darwiisha leh hawiya ii taliya ilaa xasan sheekh baa taliya hawiya taliya oo dir baa ii taliya oo ogolahay iyo nin la dir uf raxan weyn uf okay hawiya uf in la iskarab dhigo xaaraan raganimadeena boos ku lahayn runtayna boos ku lahayn oo ilaahay ka cabsado waradeero baarlamaankan xunay xamar jooga waa kuwa ummadda aakhira u diray intaynu ku musqusanahay reer waqooyi xaggaas mushkiladu waa halkan nimanka ku murmaya muuse biixi iyo daraawiish ku murmayo iska dhigaya anu kuwaas baarlamaanka wax u joogaan ma garanayo kuwaasi baarlamaanka ciidamadu haday awood leeyihiin maanta waxa oran lahaa ka qabta waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada xasan sheekhow ilaahay ka cabso okay maanta hadalkaaga
وحوجا وحلانتا يدانتا اوكي ان صومالي او سا وروا جاس يرو افر حبا رير شيخ اسحاق يدوس راعي صومالي maxay ka yihiin 5% may saddex labo way ka yihiin umada inta la inay gubso xaraan qabiil ahaan intay ka yihiin dhul ahaan intay ka yihiin Soomaali diidkan argagixisadan aakhire inoo dirtay Xasan Sheekhow miyaa lagu duulay jigjiga ma kaga soo duulay dhagax buur ma kaga soo duulay qawr ma kaga soo duulay bari ma kaga duulay may miyaa lagu duulay say ugu duulayaan shacab hubkii ay doonayaan inay xamar ku baabi'iyaan koonfur ku baabi'iyaan okay inuu ku baabi'iyo laascaanood oon daawana shay dadnimada iyo dowladnimada kuma jirto nin kule Soomaali maana iyo xukun iyo nin uf kule Xasan Sheekhow ina askar bayto iyaro dawaa ila u dirtay hal mar wada aamustay afka yare macaan shalay aad tiri adeero is not enough Xasan Sheekhow Soomaali waxay tiraa waxaan la hurayn hore baa loo yeelaa Xasan Sheekhow talaaba ka qaad haddaydan talaaba ka qaadeen adeero meesha ku kala taga oo hanfasaxno daaroodka haddii Xasan Sheekhow dowladnimo iyo Soomaalnimo iyo sharaf iyo hawiyo aydan raadinayn oo dirayn aydan raadinayn magacan dirtaba waxa ku xadgudbaya idinka adeero dir anaga ah waa inay daarood yiraahaan hadda kadib waxa dir leeyahay ka daaya magac ma istaashaan dir wuxuu ku dardaarmay boqortooyada wiil daarood inuu hayo sandulle kala xan kala tagno hal kala tago hal israamsado ninkii roon reerka u haro adeero ama Ethiopia hay naqsato adeero Ethiopian qabsan anigu Kenyan qabsan warhan isku biiro Kenya Ethiopia balliga u daran tahay hal arkay okay Xasan Sheekhow intay goor tahay waxaan la hurayn hore baa loo yeelaa Xasan Sheekhow bedel dhisankaaga ninka Xamsa waxa la sheegay inuu rafaasan yahay xaq ma aha wiilka cusub ee khibrada ahayn naan salugsanahay waxa la sheegay in ay guuldarra ka haysata xamar oo magac hawiye iyo magac Dreysam iyo magac daarood nacayb uu jiro oo sakraad yahay yaa la sheegay isagoo markii hore iska ahaa maxaan ku leeyahay meel socda